السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال وأنيغو دو حسن سيمبا waxaan maanta idin wadaagayaa qiso jacayl oo xanuun badan. Qisadan waxay ku dhacday wiil Soomaaliyeed waxa ayna ku bilaabanaysaa sida tan iyadoo ay jecelayaan ka tagay dartay ayay u ilmeenaysay qalbigeeda ayay ugu qortay wehelkeeda dhabta ah ayay iga dhigatay nafteeda way iga jecleed si aan qodheeda uga fikirin ayay teeda uga fikiri jirtay ixtiraam weyn ayay ii haysay anigoo se wax jacayl oo maan qaadin waan ku jeesjeesi jiray dan iyo heelo kamaana lahayn waxa naxariis ayay jixinjixtoona umaan heenin markay soo wacdo waan ka nixi jiray waan dhabsin jiray hadalkeeda waxaan yaa ka dabareeba ayaan odhan jiray ma qoosatan sideen ka yeelaa si kasta haddaan wax ugu sheego oo idhaahdo in nabadgeli kuma jecliye waqtigaaga waxba hay u qasaarinin dhib uma dhigayso intay cabaarooyda ayay odhanaysaa waan ku jeclahay damiir aan wax ku qaato malihi waan ku baryayaa hadallada xanafta leh haygu odhan adiga oo dharbaaxa ayaa ii dhaanta gabadh kale oo wariye ah ayaan jeclahay ayaan ku uri iyadana way jeceshahay xataa si aan iyadu uga hanaasiyo ayaan u baray oo ku uri tani waa saaxiibadeeda dhabta ah ee mustaqbalka ila wadaagaysa waxaan ku rajaynayaa inaad adiguna mustaqbal wanaagsan dhisan doonto sidaan jawaab kale uga sugayay ayuun bay igu tiri kuguma nacayo gabadhan sidaad iyada u jeceshahay ayaan ku jeclahay alle 4 dumar ah ayuu ku baneeyay xataa haddii xaaskaaga dhabta ah noqoto anigu waan jeclahay maalin uu roob mayayna helay ayaanu aniga iyo saaxiibka intaanu gaari ka haysanay magaalada ka baxnay oo dalxiis tagnay jidka annaga oo sii socona ayuu baabuurkii nala dhacay saaxiibka isla goobtii ayuu ku qurbaxay anna kooma ayaan galay 20 cisho ayaan miir doorsanaa koomadii waxaan ka soo baxay aniga oo dhakhtar aala labadii lixaadna leega jaray waa lugihiye isla daqiiqado gudahood waxaa halka ka soo gashay inantii jecleed ee aan xumeeyay markaan muuqeedii arkay ayaan isku daray oohin iyo ilmo aan joogsi lahayn iyadana way igu dartay madaxayga intay gacanta saartay ayay igu tiri walaal waa adduunyo waxba hays murugeyn waan ku garab taagnahay meel kama tagayo bas ilmada jooji saaxiibadayda dhabta ahayd ee aan jeclaa markii lugaha layga jaray ayaa nuurigeedii igu dambeysay xataa taleefanka igama qabato nafsi waa madaali qofkii aan ka cararay ayaan mutay marna ismaan lahayn sidan ayaa dhacaysa waase adduunyo wax walba waa laga fishaa laxaad la'aanteedii igu miincin sidii ayay ii jecleed mustaqbal baanu dhisanay reer baanu wada yagleelnay 3 caruur ayuu aaban nagu arsaaqay daawadayaal waxa halka ku eg qisadii xanuunka badneed ee ku dhacday walaalkeena Soomaaliyeed balse dhageysta ama daawadayaal waxaan idin weydiinayaa 3 su'aal oo ku saabsan qisadan ma u samir lahayd nin noocaas oo kale ah waa mid koobaad ninku madaneysta ahaa ama maya marka tagi lahayd run ahaantii ninkaas fikirkaaga waa noo muhiim